اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. halkan waxaan fariin uga dirayaa jananada ciidanka badda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan ka xog warramayaa wax in badan anigoo ah gaashaanle dhexe Cabdullaahi Cabdi Jaamac Awliye sarkaal ciidanka badda ka tirsan aan la yaabay oo aan qarsaday oo ka socda magaalada Berbera muddo dheer oo udubtiya ayaan jagadan lahaa oo la ii sharciyay inaan ka maayirka ayaa si cad u damaaciyay meeshayda iyadoo cashuurtiina uu isagu iga qaaday tii u dambeysay. ninkaasi wuxuu keenay tiraba 7 nin oo hore oo nin walba uu yiri ku qabso anaa ku garab taagnay isagaana doonaya meesho si caddaana halkaas la igu yimi. wuxuu ii soo adeegsaday ciidanka biliiska iyo badda oo janadii hore la bedelay ciidanka markay joogeen meesha halka 12 mil baa ku dhacay dareyskayga iyo gaarigan watay 40 xabba ku dhacay. inankaas waa inaan maafiya magaaladana masaakiintii agoomo way hadal daayeen wada arkaan u dirashada xiran oo sharcigeygii si tabu damaacisan yahay. imaka xalay baa lagu bilaabay seeskan arkaysaan maantaan labadii joojiyay. waxa hadii la ku rooyo uqaal baa ka garnaqday odayaal baa wax ka garnaqay intaba wadu maray oo la iskaayo soo horfaysiiyay. saraakiisha taliya qaybadada ahaa markaa Cabdi Cali Xaydiye baa kamid ahaa mudane madaxweyne iyo jananada ciidanka badda abaanduulaa iyo jananka. halkan waxaan ka cadeynayaa arrintaas inay SOS ugu tahay aanan yeelayn xaaraan aanan cunin hadii la ku rooyahay cid aanan dulmin ahayn mujaahida oo inta caruurtiisa u hayay imakana cid buu soo sameeyay uu leeyahay sheego aan hadii la ku rooyay ana yeelanayo anna waan ka iibsadaan oranayaa waa kii sideedad. waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cadaaliga anigana ay garanayaan la yaqaanka iyo jaranka ciidanka hadii la ku rooyay xaqa iyo banduulaa ciidanka badda. waxaan ka codsanayaa jananadaydu inay igu ogaadaan cadaalad darrada ay igala hawlgalaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan ku ogahay cadaalad iyo raganimo iyo xaq baan ku ogahay. waa ka aan wax kasto oo dhibaya rasaasta layla dhacay aan ka qarsanayay xaaladda siyaasadeed waddanka uu ku jiro aan hadii la ku rooyay aniguna lana yaabay waana nin ciidanimo garanaya mudane madaxweyne maalan qariyo way dhaaftay. waxaan ka codsanayaa inaad ninka nakal qabato nakala gaadho waddanka waxaynu soo maray wad garanaysaa intaasaan caruurteedu hayay inuu qaataabu doonaya mid kastana uu ka qaaday meeshiisa masaakiina. waxaanu isu adeegsadaa dadweynaha nin walba odaygiisu u adeegsanaya iyo kii wuxuu dhicin lahaa. waxa weeyaan barbarina ma noola ilaahay garabkaaga ha galo barbarina uu soo gurmo annagana nakala gaadh nin yeelaya xaq darro intaasaan daanugu badkayga u hayay udub baan sharciyeystay waad garanaysaa xaaraan na shaqo kuma lihi nin wax booba ma yihi nin cadaalad darro yeelayana ma yihi. madaxdayda ayaan u bandhigayaa bayska la cusub ee la dhisayo ayay ku xigtaa airportkana waqooyi bay ugu toosan tahay. mudane madaxweyne mujaahid baa tahay nin xalaalaatay ilaahay baan kugu dhaariyay waxaan doonayaa cadaalad noo qaado seeska waan iska hor qaadaya kaasina maanta halka nin ciyaar kaga tagayo intaasaan ayaan ubadkayga la sugayay oo aan xalaal ugu shaqeynay waddanka ma yihi dad cadaalad oo taliyayaashaydu kow ka yihiin gartayada ha qaadaan markaasay fashilmaysaa waxa uu hurinaya beenta uu sameynaya. assalaamu calaykum.